maanta ama caawa waa maalin taariikhi ah oo aan halkan isugu nimid inaan ka wada hadalno go-aan maaha inaan is dhegaysanno kala ra'yi duwanaanshaheena aan isu qaadano aan isu tanaadulno oo aan uga hadalno masiirka dalka aan uga hadalno iyo mustaqbalkiisa iyo mustaqbalka carruurteena aan uga hadalno waxaan rabaa inaan waxyar ka yidhaahdo muhiimadda aan halkan isugu nimid waa la taataabtay waxaa laga hadlay shakhsiyaad ama dad raba in ay doorashada ku soo noqdaan ama baqdin ka qaba intaas waa ka weynta shaksi iyo rabitaankiisa way ka weynta anugu waxaan ku imid nidaam la yidhaahdo doorasho dadban oo aanan dalka hore uga dhicin waxaa ka horreeyey doorasho oday dhaqameedyadu ay soo xulaayeen labada waa ogeyn culays badan yaa saarnaa dadkuna waxay qabeen walaahoon wareer qaarna waa waanaayeenba say ugu soo noqon lahaayeen sababta wax kale ma aha nidaamka lagu soo noqonayo yaan la garanayn waa lagu qaracsanaa 2016 nidaamkii lagu yimid maxaa yeelay nidaam hore loo yaqaano ma ahayn waxay ahayd nidaam lagu heshiiyey oo wada ogolaahayd wixii ka dambeeyey waxaa lagu ballamay inaanan qaabkii hore qaab ka duwan wax loo sameeyo oo ah doorasho aanan ahayn qaabkii dadbanaa sida dastuurka uu qabo oo ah doorasho toos ah ama qof iyo coda dad badan yaa waxay qabaan inaan runtii aan ka gaabinin oo aanan waxba ka qaban oo sanadkii hadda ugu dambeeyey 2020ga aan soo baraarugin oo maalin walba idaacadaha u sheega shacabkana ugu celceliya xaqiiqatan hawsha hadda aan u fadhino waxaan soo bilaabnay markii la doortay maxaa yeelay waxyaabihii laii siiyey mandatka yaa waxaa ka mid ahaa dalku inuu aado qof iyo cod afar bilood markaan joognay yaa waxaan samaynay guddi oo dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay ku midoobeen dowladahu xubnaha ka ah waxay soo dirsadeen dadkoodii ugu fiicnaa ugu aqoonta badnaa ugu khibradda badnaa annagana waxaan soo dirsannay kuweynina ugu fiicnaa yaan soo dirsanay muddo hal sano ah yay ka shaqaynayeen waxaan ka hadlayaa waa markii aan ka soo noqonnay london conference yaan bilownay guddigaas inuu howlgalo nairobay ku shiraan jabuutay ku shiraan dowlad goboleedyada meelahooda ku shiraan xamar bay ku shiraan waxay keeneen waxaan u dirnay 4 ajenda yaan u dirnay inclusive politics ay ku jirto qof iyo cod anugu waxaan rabaa inaan xog idin siiyo siday waxay yihiin inaan wax idinkugu sheego inclusive politicsku oo ah doorashada loo dhan yahay oo ay ku jirto nidaamka aan isku dooran doonno sida dastuurku qabo waxaa ku jiray khayraad qaybsi dastuurka reviewgiisaa ku jiray waxaa ku jiray garsoorka ayaa ku jiray shaqadii ay qabteen miraheedii waxay soo dhammaatay laba ajenda juun 2018 annagoo ku wada qaracsan iyo waxay noo keeneen qorshihii doorashada qaabkii lagu geli lahaa iyo moodalkii iyo sidii aan khayraadka u qaybsan lahayn macnaheedu waxay tahay waxaan bilownay maalintii aan nimid xukunkaan bilownay in dalka aan u diyaarinno election soo socda direct election ama election toos ah oo qof iyo cod ah meeshaas wey meesha ay wax ka bilowdeen annagoo wada soconna oo raalli isaga ah oo ku qanacsan oo weliba ku faanayna inaan bilownay processkii waqti aad u horeeya golihii wasiiradu
maxaan ku idhaahdaa sharcigii aan keennay golaha wasiiradu waa iska gudbiyeen waxay u gudbiyeen baarlamaanka sharcigii annagu aan gudbinay maahay baarlamaanku intay fadhiisteen oo muddo qaateen iyo waxay soo saareen sharcigii aan geenay mid ka duwan oo aan shaqo ku lahayn waxa keliya isaga mid ahaayeen ay ahayd doorasho qof iyo cod ah keliya anigu qof aan wacay oo guddigaas ka mid ahaa loo xil saaray hal qof aan wacay ma jiro amaan la hadlay oo aan idhi war keennii annagu aan keennay yaa khayr roolaaye kaas maa qaadataan iyagoo naga sii jeeda oo wax naga cararaya yee waxay la soo baxeen kan hadda yaalla waxaa la lahaa madaxweynuhu waa diidi doonaa bacdamaa uu ahaa kii hore mid uu isaga toshay jaakad uu toshay laakiin shacabka weynaha soomaaliyeed iyo qof walba waxaan u caddeeyey kan kii aan toshay inuusan ahayn laakiin aan saxiixay haddii dalku uu hore u soconayo oo taariikh cusub aan gelayo anigoo ku qanacsanayn maxaa yeelay waxaan ogahay in aan lagu noqon karin wixii aan hore u soo marin oo haddaan ku noqonno na lagu eedeynayo inaan annagu waxba ku marin oo meeshii 2016 aan joogno waad ogtihiinoo dee siyaasigu wuxuu rabaa wuxuu ku faano uu yidhaahdo waxbaan gaar ma ku faani karo 2016 baan joogaa kuma faani karo annaga waxay naga ahayd dadaal marka intaas waxaa dheer oo aan ka shaqaynayay maalintiina la doortay ilaa maanta waxaan ku haynaa shacabka xiriirka shacabka iyo dowladda waa in la xoojiyo waa in awoodda shacabka lagu celiyo waa in shacabku ay yihiin sovereign dadka dowladnimo iska leh oo dalka iska leh yaan ku helay oo shacabkii waa kicin laabtoodii waa kicin waxay aaminsan yihiin inay aadi doonaan doorasho toos ah bacdamaa wax alla wixii doorasho ahaa oo la yaqaanay hore loo soo maray baarlamaankii sida la sheegayo iyagoo ka cararaya madaxweyneyaashii yaa waxay keeneen mid runtii xitaa aan la garanayn kusoo noqonayaan iyagoo dhan laakiin faa'iidadiis wuxuu yahay shacabkii yaa waxay heli doonaan fursad dalku wuxuu heli doonaa in la yidhahdo soomaaliya waa istaagtay dalkeena wuxuu heli doonaa sumcad ah muddo dheer ka bacdi soomaaliya waxay u gudubtay dimuqraadiyad hadda ogaana boqolkiiba boqol inuu ficnaan doono inkan lama yaqaanin laakiin waxaan ognahay in uu yahay wixii muddo dheer lagu riyoonayo oo la lahaa waa loo gudbi doonaa iyadoo ay saas tahay yaa waxaa la soo galay coronavirus wuxuu naga qaatay muddo 6 bilooda muddadaad arkaysaan oo dib u dhacay waa muddadii dalku kala xirnaa laakiin wixii aan dadku sheegayn muddada dheer wixii dowlad goboleedyada iyo annaga aan waa hore go-aan ku qaadanay wixii caalamka iyo beesha caalamka ay ahayd inay ku faanaan oo yidhahdaan soomaaliya muddo dheer yaad dhaqaalo geliseen oo intaas aad kala shaqaynayseen inay institutionskoodu uu dhismo maanta soomaaliya waa istaagtay meeshaas way meesha hadda la joogo baarlamaankii oo soo taagan oo leh sharci baan diyaarinay oo doorasho guddigii madax banaana doorashooyinka oo leh doorashadii waa qaban karnaa bacdamaa ay soo shaqaynayeen muddo 6 sano ah iyo walaalahay oo leh xaaladdeeda ma joogtaa xaaladdii ma joogtaa lagu qaban lahaa hawshaas doon meeshaas way meeshay loo taagan tahay marka hadda
waxaan isku afgaranay inaan wadno doodii marka oo annagoo iscalool xaaranay oo si fiican u sheekaysanay oo saaxiibbo noqono aad isugu soo dhawaada inaan ka sheekaysano shacabka waxaan ku celin lahay aan u sheegayahay xildhibaanadii dastuurkii iyo shuruucdii ay ansixiyeen sidii laga yeeli lahaa iyo duruufta jirta meeshaas oo meeshay hadda joogta marka aniga meeshay waxay iga aadan waxay tahay madaxweynihii qaranka waxaa laga rabaa inuu ahaado ilaaliyihii sharciga iyo dastuurka iyadoo ay saas tahayna inuu waaqici yahay oo xaaladda dalka ka jirta uu og yahay uuna wax walba oo wax walba ay tahay in lagu saleeyo macnaheedu waxay tahay ilaahay runtii wuxuuna siiyey khibrado badan ileen waxaan soo soconay muddo dheer ayaan soo soconay intii dowladda dhexe burburtay dowladdii burburkii ka bacdi waxaa soo dhisay saad la socotaan siyaasiyiin jabuutaa lagu soo dhisay 10 sano way shaqayn weyday tii ku xigtay civil society-gaa dhisay oo carta lagu dhisay 2000 iyo oday dhaqameedyo iyo siyaasiyiin tii ku xigtay waxaa soo dhisay hogaami kooxeedyo oo lagu qancinayay iyaga tii ku xigtay culumaa soo dhistay oo iyadoo lahaa bal iyagii ha lagu kala qaybiyo ama hal lagu gaaro tii ku xigtay oday dhaqameed baa soo dhisay oo waa tii uu xasan sheekh ku yimid tii ku xigtana waxay ahayd moodal ka fiican wixii oo dhan oo konton erga ah su-aashu waxay tahay marka ma shacabkaan dib ugu celinaa ma cilmi kalaan keennaa waa xigmad annaga lagu jirta annagoo ilaahay kaashanayna waa su-aal meesha taagan marka waa isu soo noqonaynaa hadduu ilah yihahdo waa ku ballanay annagoo maskax furan oo open mind ah qof walbana uu dib ugu noqday meeshii uu ka yimid oo dib la tashi u samayn karo ama dib ula tashan karo dadkii uu ka yimid annagoo xaaladdaas inaan isku soo noqonno oo aan raadinno xal aan raadinno xalkaasna uusan noqon mid shakhsiyaadkeena noo wanaagsan laakiin inuu yahay mid shacabka soomaaliyeed iyo sumcadda soomaaliyeed u wanaagsan inuu yahay waa xaqiiqo maantaan joognaa taariikh baa qormaysa ma naqaano waxa aan ka shaqeynayno ma wax fiican bay noqon doonaan mise waa xun laakiin haddii intentionkeenna uu yahay wax wanaagsan ilaahayna tawakalano waxaan aaminsanahay inaan guulaysan karno haddii aan maskaxdeenna isu dayno sidii la sheegay haddaan isu dul qaadanno iyo haddaan isu tanaasulno ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay dalku meel fiican buu ku socdaa waxba yaan la qalbi jabin mas-uuliyiintii dalka ugu sarraysaan nahay waxaan ka fakeraynaa danta guud yaan ka fakeraynaa danta shaksiga ahna kolley oo ku badan inaan ka tagno waxaan soo wadnana ma aha wax ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed iyo sumcadda soomaaliyeed u daran noqon mayso insha allah hadduu ilaahi kariyo intaas waxaan u sheegayaa waxay tahay waa macluumaad ma aha faker ma aha opinion ma aha waa macluumaad soo jiray waa macluumaad aan ku soo dhex jirnay oo aan ka shaqaynaynay iyo mustaqbalkii oo lagu kala fakir duwanay sidii lagu gaari lahay waana caafimaad haddii la kala fakr duwan yahay oo qof walba uu haysto faker gaar ah waa caafimaad muhiimku wuxuu yahay in aan ogolnahay inaan isu imaanno fakerkii aan isu geerino waxa danta dadka ah ama danta dalka ah inaan ka shaqeyno baarlamaankana taasaan ka rabnaa iyaga naftigooda dowlad goboleedyada madaxdooda waxaan ka rabnaa taas anigana dhexdaan u fadhiyaa oo waxaan ahay ilaaliyihii sharcigaana isla markaasna
siyaasad lagama tegaayada laftigeeda waa in la helo xal siyaasadeed oo dadku ay ku qanci karaan in la helo marka mas-uuliyaddaasi waa la wada saarantahay kulligeed haddaan uga shaqeyno sida ilaahay ugu ogyahay sida shacabkeennu ay raaliga ka yihiin sida qalbigeenu u wanaagsan oo ah wax wanaagsan in aan dalkan uga tagno taariikhna aan uga tagno waxaan aaminsanahay inaan gaari karno waxa dalka u wanaagsan inaan gaari karno insha allah anugu dee dib baan waxaan ugu noqonayaa baarlamaankii waxaan kusoo wargelinayaa waxaan saaxiibadayna ku sheekaysanay uu cabdicasiis yiri halkan kama sheegi karno iyaguna dadkooda dib ugu noqonayaan hadduu ilaahay yidhaahdo waa soo qorayna annagoo qalbi fiican annagoo rabna wax wanaagsan inaan ka shaqeyno oo ah wax annaga danteena ka weyn wax danteena ka weyn oo maslaxad shacabkeenna iyo mustaqbalka carruurteenna ay ku jirto walaalayaal mar kale waa mahadsantihiin sida wanaagsan aad noo soo dhaweyseen sida aad noogu gogasheen guryihiinna sida raashinka warkii halka yimid oo faraha badan aad runtii u soo dhaweyseen ood u qaabisheen waxay la tahay inta halkan joogta waxaan waa markaan shay keliya maaha in soo noqnoqon doona hadduu ilaa yidhaahdo hadalkeega waxaan kusoo gabagabeynayaa dalku meel fiican buu u socdaa annagana si fiican baan wax u wadnaa rajadiina ha wanaagsanaato shacabka soomaaliyeed meel kasta joogaan wasalaamu calaykum waraxmatullah